taliska ciidanka Puntland ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in hawlgallo ka dhana dagaalamayaasha Daesh ay ka fuliyeen deegaanada dhabanqahle Casas iyo sidoo kale ceel Gambare oo dhamaantoodba ku teedsan Togga Baalade ee Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka Puntland ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in dhammaanba deegaanadaasi laga fuliyay hawlgallo qorshaysan. Hawlgalladaas oo la doonayo in ururka Daesh lagaga sifeeyo aagga Togga Baalade oo ay ku urursan yihiin dagaalamayaasha Daesh. bayaanka ka soo baxay ciidanka maamulka Puntland ayaa sidoo kale ku sheegeen in hawlgalkaani uu ahaa mid dhowr waji laga weeraray dagaalamayaasha Daesh oo maalmihii ugu dambeeyay ku dhumaalaysanayay deegaanada ku teedsan Togga weyn ee Baalade. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in hawlgalkaasi lagu dilay dagaalamayaal fara badan oo ka tirsanaa ururka Daesh. hase yeeshee qoraalka lagu xusin tirada rasmiga ah ee Daesh lagaga dilay hawlgalkaasi ciidanka Puntland ay ka fuliyeen deegaanada Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. sidoo kale qoraalka ka soo baxay ciidanka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in hawlgalladii ugu dambeeyeen ee ciidamadu ay ka sameeyeen Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ay horumar weyn ka gaareen, isla markaana dagaalamayaasha Daesh ay ka saareen fariisimihii ugu dambeeyay ee Daesh ay ku lahaayeen buurahaasi. sidoo kale qoraalka ayaa lagu xusay in hawlgalkaasi intuu socday lagaga furtay hub aad u fara badan iyo gaadiid dagaal. waxaan intaas ku dareen in ay sii weyn doonaan hawlgalkan ay ugu magac direen Hillaa, kaasoo iminka si xoogan kaga socda deegaanada ku teedsan Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari, halkaasoo ay fariisimo waaweyn ku leeyihiin dagaalamayaasha Daesh.